ninkaas cararayo oo marba dhinac u ordayana waxaan u arkaa nin gacan saar la Soomaaliya xukuumaddii tan ka horeysay taleex buu yimi qas buu ka sameeyay wixii uu sameeyay shacab baa ku dhintay deegaanka u dhashay waxaan u aqaanaa nin marka ciidamada isna yimaadaan hor ordo ka carara oo fula xasalad iyo halal la aandeyn itaal haduu leeyahay laba baxsadeen ma carareen ragalnimaduna waxa ma aha ninku inuu carare xataa laga xoogoonaade in wax ka cisha la qaatay marka ninkaas waxaan u arkaa nin iska hadlaya dhulkaas waa Puntland waxa laga weydiin maayo muwaadin kasoo noqday waxa uu sheeganayo oo reer Puntland ah oo ragii isagoo kale ahaa oo wixii waagi kale lagu dhabdhalay anu maamul ma aqaan ma ahayn ragii xilaafa looga sheegay waxa wasiiradii laba wasiiro kamid ah ragii madaxweynayaasha sheeganayay waxay ahaayeen xilligaas ay dhamaadeen wixii ka dambeeyay oo iska xasalad iyo hadal tiro isaga iyo oday cali la yiraahdo cali khaliif la yiraahdo anagu baarlamaanka federaalka loo doortay sabab uu meelahan u wareeg cadeysanayo marba meel uga hadlayaan aan garanayn hada khaatimo wax la ma jiraan dhulkaas waa dhul Puntland bay waajib ku tahay waxaan leenahay kaaya shaydaanka iska naara ka waantooda waxa sheeganaysan wax jira maaha reer Puntland baa tiin haddaydan ahayn Puntland lama kala qaybinayo anaga horta dawlad ahaan ama baarlamaan ahaan ragayada siyaasiyiinta ah oo waliba anu deegaanka rag ka soo jeedaan kamid ahay dadkaas waxaan u arkanay dad tabasho siyaasadeed ay ku jirto haddii qofkaaga oo wax tabanayo wuxuu doonaa sheegtay in loo yeero loo dhimriyo loo aqli celiyo wuxuu tabanayo wax laga qabto taas waa siyaasadda dawladda waa inuu aaminsanahay laakiin maxaan ku qaabilanaa shacabka reer Puntland anu indhasheel iyo ragga la aragti ah kow khaatimo ma aqoonsanin Puntland ahaana maamul khaatimo la yiraahdo oo deegaamada Puntland dastuurkeeda kamid ah ka jira mar aqoonsan ma lagu qaabilayo hadday muwaadiniin yihiin reer Puntland wixii tabasho ah wixii dhaliil ah aadmi baa nahay siyaasadda dawladda khaldanaan karta xukuumadii hore tabashooyinkooda waxa kamid ah ugu badan oo shacabka ay ku kiciyaan lacagaha kaga gurtaan Puntland dalku difaaci weey صح wadadii aan lahayn soo samaha halaysu yimaado hal sheeg haday ka hadlayaan awoodoon yihiin waa mukala hadlanaa waa rag muwaadiniin xidhiidh asaj laga dhaxeeya anaga iyo maamul goboleedka dawlad goboleedka Puntland oo ku wajahan iskaashi hadii bidkeeda leeyahay deegaanada tan muxuu ahaa ay maamul goboleedka ama ilaahdo ay maamul goboleedka Hargeysa uu soo galay aan ilaahde ma jiro waxay in badan ku gabaneysay oo shaqadeeda wasaqda u fulinayay hadii bidkeeda leeyahay horgalayaal deegaanada ka tirsan haday siyaasiyiin yihiin iyo haday yihiin ciidanba waxa ku soo maxay ahaaytay aayadiiba qahaysa maanta quraanka ku taalay ee ahayd alam nuhlikul awwalin thumma natbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin horgalow qorta aayadaas ku haysay ogow meeshaad joogtidba haddaad siyaasi tahay iyo haddaad ciidan tahay waa kuugu imanayna gurigii aad ku jirtidba waa kuugu imanayna haddii awal adoo soo horgalaya xabadda aanu ka dayn jiray maanta annaga godkaad ku jirtaba kuugu imanayna horta ku xisaabta horgalow